من لبس ساعة يسينسا صح لحظة ساعة ماشي صحيح يسينسا وixii ka dambeeyo meesha walaalaha dadka ku soo wacda ka qaada lacagta haday wax ku soo wacanina iska soo wareeg gaarigan qaado iskaga soo dalxiis صح بلوكاد والله meesha loon baa ku maqanay maxaa tiri 6 saac baad shaqo galaysi laba saac meesha ana joogay saddex dukaan waa laba saac meesha ana joogay laba saac meesha ana joogay laba saac meesha ana joogay marka adigu shirkadan hal waxa weeye ma taqaanaa shirkad baa iska leh dukaanada mise waa qolo haday ahaleed ku fiicnaa leedahay hal qofood oo inta tikidka iga dhiibay wax dhan iga dhiibay ayaa igay marka adigu wuu ku qaybiyay oo 6 saac buu u kala qaybiyay isagu waxa weeye ma taqaanaa markeedadiisa oo midna labu siiyay mid kalena wuxuu siiyay laba mid kalena saasuma meel waxa ku yaalo waxaad ii qortaa 6 saac ii qor waa loon 6 saac adduunka waxa lagu shaqeeyaa waxa weeye ma taqaanaa 10,000 oo milyan baa lagu 10,000 oo dollar baa lagu shaqeeyaa oo wallahi billahi 6 saac lacag yar ma 6 saac waxaad ku dhufanaysaa hal su'aal baa reeli waxa barta hal su'aal baa ka weydiinaya Shimuri markii ay ku dhaheen kaalay haysis baa noo sameynaysaa meesh miyaad iska aadi miyaad la heshiin oo aadan oran lacag iyo qiimo ii sheegay waxa aan ku heshiis wax ku heshiisanaysan oo lacag iyo wax ku heshiisan meel iska aadi meesh in waqti qof markuu ku dhaw waxa ii sameey waxa la dhahaa waxa waa ku sameynaya maxaad bixinaysaa lacag baa la dhahaa moogtay maanta nin caana iyagu ka faa'iideystaan bay doonayeen aad lafta inaad chance ka faa'iideystid weeye moogtay ay taas way ku anigana aqoon la'aanta waa iftiin la'aan markaan ku dhahay qaabkan oo kale wada ay gulaadayso waay maxaan ku dhahay ma taqaana aniga waxba ma kala ogeynbo diyaaradaada go'aanbaagaaga anaka bixinayno qarashka cunanaad guriga dagi lahayd iyo waxa anaka kugu talagal anaka ilaahay dartiis anaka dhiibanayno hanolo murmin hanolo gorgortamin noo imaad waxaaga waa ku waanaay wasa reeli baa ninkan hadii marka inagu aynu talada aynu siin lahayn oo aan la talin lahayn maanta heer buu leeyahay guideline iblaytullah talaaanta wax ku ma jirto moogtay Shimuriyo qaab darada leeyahay Soomaaliyan ku sheega marka meesha tagay hoosha danta lagu fushtay oo shaqada lagu qabsaday waxa la yiri baska kirishbay ka ajirtay maad noo malaysaa wariyaa dantii laga gaaray moogtay TV-gaas magacii TV ma ahayn yar dad soo dhaweey jiro oo Kenya jooga magaciisa laga maqamay Shimuriyo arrintaasi waa arrin adag weeyaan niyo anigu nin meesha iga soo dhaweeyay nin waxa oo yar oo YouTube risto ay wareysanayo baabalkaaga bangigaaga ka waayda yarkaas ay ugu fiicnaa wax oo muslimnimo iyo gacan qabto iyo caawiye yarkaas kugu fiicnaa suma ku wareysanayee waxa weeye ma taqaanaa ay kulaha Ridwan Isaaq waka waruntii Ridwan ninkaas nin dhalinyaro muumin weeyaan Shimuri ma fiican oo guriga markay dadkan soo dagaalnay guri ii kireeyo lacagta qarshi iga shubay deposit iyo lacagta guriga iga dhiibayo joodar ii gadayo inta ku noolaa haday inta ku anfacaysana ticket anaa ku jira diyaarad anaa ku saaraa horta Ridwan dad badan waxa arkay haystan way arkayo bangi maartay uu kala duubay iyo video-ga uu duubay bangi lambaradiisa sidii la markay waxa laakiin isna waxa laga yaabaa in aqoon darro inta wahay bal dhici karto moogtay laakiin ninkaas wax kale isagu ma lahayn asna wallahi ka daacaday ما أنا واحد يقول قرينا ما جرينا وكذا هذا هذا Soomaalida binaadamka ninba waxba wax ka raadiyaa moog صح أنا wax baan kala bartay wixii fiican iyo wixii xun Ilaahay subhanahu qadarkiis meesh wax baan ku soo arkay waxaan dheelahay nin walba halkaaga nin walba dalkiisa wax u dhaama ma jiro hadda dhulkaas Kenya waa lagu matalaalay maana Kenya Soomaaliya askale badana Soomaaliya oo hantida meeshta Soomaaliya leh waa ko Kenyaanka ay ka abda lagu shaqeystaa Soomaalidaasi bash gacan yar u yihiin wallahi Soomaaliya badana meesha hantida iskale hantida meeshta lagu shaqeeyo guriyaha meesha laga dhisanayo badana Soomaaliya iskale waa ko waxa weeye Soomaaliya dhaqaalaha u badan iyo ganacsiga u badan Soomaaliya la moogtay Kenyaanka wuxuu hayaa baleb haday u badato wuxuu leeyahay meel oo timaha lagu sameeyo iyo may hayesh dhaqaalaha Shimuriyo Soomaaliya waa fikireen beeraha ka keenanay gadgadaan bas iyo xoolaha ku qalayaan dadku Soomaaliya u fikireen waxay dhayn wadanka soo daga ganacsigii bay mushtarkii cashuurta wax soo bixinayaan loo Soomaaliya Shimuriyo waxaan ku weydiiyay ninka sidaan kula dhaqmay intuu kugu xayisiistay markeedadiisa ku yiri meesha ma waxa uu haysataa waxa weeye ma taqaanaa waxaagii qoladiisa ma garanaysaa ciddu aha ma taqaanaa ciddu aha ninka oo saasi dhaaya
ها ninkaas waa qoloma كورن اللي واحد يعني لوق كوي دينو إن شاء الله سكر إنه وش هو هذا برتاع بابليك سكتاي ما public الله في Soomaali baan u sheegaynaa Soomaalidaas ma qashay ila inta xaq ma raadinaynaa xoolaha inaga maqanay وأنا كيف باتري والله إنني يروى عنق يروى دلنا يرى أسيقنا قول لهم بأوجيسي كل قفة أنت كقاعد ماشى أجيسي ولا لو مياها شغلة وايد ما يسي تلك عن قوة علنيا وحاجنا واقوانا وحي يقول وريا أنا بقرش يقرش ويروريا خرج بدن بعد يجلسي سياسة بالمية يا مستشمر مثلا إلى هذا شو بعي شمر بدنا كام مكان يعني أنت تيجي سوف ريستي أما لايف كسوق شيء لا تهي هبل بساعة ساعة يلا يوم ساسو إلى هذا شو بعي إلى مسار معي يو asiga daw garaway adiga garaansaday walaal wadiin asini ka saan ku yeeshanta furad ilaahay jinka badhiga dadka ilaahay isku qaloob ma aha qofka bini'aadamka dad bisha wadada gafto asiga daw ku gafay shamuurayo karona waa wallahi qalbiga ka dhan ina shamuuriyo ma maqlaysaa aniga aado weyn shamuuriyo inaad yaro cadceed soo baxday saacba lagu ma qariyo koowde sax waxa adiga lagu geystay oo dhan waan ognahay Soomaaliduna way ka dheregsantay horma garad kaliya waxa loo baahan yahay oo adiga aanu waxa weeye xuquuqdaada ku raadin karno oo qodobada aanu qornayna waxa weeye ma taqaanay sidii saxda ahayd aanu waxa weeye ma taqaanay dadka ugula hortagi karno waxay tahay inaan kalsooni ka helno Soomaaliduna kalsooni ka hesho adiguna aad cadayso ma sha Allah insha Allah adigoo oranayo oo halayskaaga yahay haddana hadda imika fiidiyoyada aad soo gelin doonto inay noqdaan TV walba dukaan walba albeerka walba meeshii adigu berigii aad waxa weeye caan ka ahayd ee waxa weeye in kaarta kireedha inay kugu dhicin eed noolayd aad marmari jirtay wixii ma taqaanay godobkaaga maqan iyo wixii ma taqaanay dhaqaalahaagii meesha waxa weeye ku dhacay iyo waxaad adigu xoolaha aad xaq u leedahay inay ka duudsiyeen aad uga shakisan tahay inaad maalin kasta soo geliso albeerkada hebel saasa la igu sameeyay xoolahaygii baan rabaa xaq waxaan u leeyahay inaan helo sidaas si maaha islaamnimo maaha Abdi Yusuf waad maqlaysaa Umar Abdi waad maqlaysaa fiiriyo noocaas kaaga baahan kadib oo taxane ma garat haduu ilaahay waa iga fadhisaa warkaas ha Soomaaliduna way ogaan doontaa waxay oranayaan warninku waa runtii waa lagu garab istaag hal la siiyo xaqiisa baa la oranayaa laakiin waxa la yiri wiil aamusay oo yiriba gabadh waxa weeye qadisay ha aamusin inaad ma garat waxa uu aamus ma taqaana warta dadkan isku niyad ma ahani oo dadkan